Gumeysiga Itoobiya ninbaa gaadaya jira dhibaatada Itoobiya ninbaa gaadaya jira Itoobiya in la iska daayo maalmada maaha in la iska dhigayo waddankan uu soo dooshay Somalilandna wasadeeda cabdi in la kala gaasho la garaaco muhiimada loo baahan yahay. Soomaalidana dantooda yaqaanaan waxay yaqaanaan xarakaadka waddanka Soomaaliya tuulada haysato inay qabto waaye. Xaashid Maxamuud number 1 xarakaadka waaye. number 2 Soomaaliya waxay u baahan tahay nadaab ay kala dambeyn iyo way kala kaafsan tahay laakiin waddanka Soomaaliya waddankaana hooyo berigii u noolaa maxamed saabare ilaah naxariisto janno firdawso ilaahay ka waraabiyo ninkaas geesi ahaa aliyo ahaa ummadda aabba Soomaaliyeed buu ahaa naxariis jannadaas iyo Soomaaliya ninku asaga haystay kala dambeyn qof farta ku taaban jirin muwaadin Soomaaliyeed ahaa dalkiisa jecel waddanka dhisay waddanka hogaamiyey waa sidee Afrikaan badan buu hogaansho u ahaa siyaabale maxamed siyaabale hogaansho dhan buu ahaa oo Afrikaan dhan balanbalankiisu ahaa wuxuu u baahnaa Soomaaliya ilaahuna xasan maxamed siyaabale oo kale waxay u baahanta Nad Xasan qofka uma baahna Nad Xasan waxay u baahan tahay maxamed siyaabale oo kale number 1 number 2 ma u baahna qabyaalad iyo burburiyo dhibaato in waddanka laga raaso Soomaaliya muhiimada maaha. Itoobiya hadda Soomaaliya isku duuban tahay oo gacan yihiin oo xigaal yihiin oo isku duuban yihiin oo shaqo yihiin waxa waa Itoobiya ma samaysaneen. Itoobiya waxaan aragtay inaan nahnay dad dhaqamo ah oo danteena aqoonin oo kala kakaabsan nahnay oo danteena aqoonin oo naqaano falan lacag ku shubo. Soomaaliya waxay u baahan tahay xasan oo kale uma baahna in xasan la tuuro madaxweyne cusub la keeno waddanka. Siyaasaddaas aan hadda ka mahadla siyaasad wax ka hadlaa waddanka Soomaaliya waxay u baahan tahay inuu kala tago Xaashid Maxamuud in laga qaado waddanka loo dhiibo madaxweyne daalad ka soo bixi jiro beri kadibna la xisaabtami doonaado wax bixiyo. waxay u baahan tahay Soomaaliya cadaalad waddanka cadaalad ma haysto waddanka waxa haysto dhowaa walba koraan intaasoo ku kala gabayna codkayga. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.